iyadoo dalka ay soo mareen abaara baahsan kuwaasoo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada ku dhaqan guud ahaanba gobolada bariga Somaliland ayaa dadkii xoolahaas ay ka bixeen waxay haatan u soo jeesteen ay kulan dhaqaaqeen dhinaca dalagga wax soo saarka beeraha. warbaahinta qaranka Somaliland ayaa booqatay deegaanka Naafaysay halkaas oo laga sameeyay beero gaaraya ilaa 25 kuwaas ay samaysteen dadkii xoolo dhaqatada ahaa xoolahoodii ay abaartu ka dhamaysay waxaana indhaha iyagu qabanayeen guud ahaanba dadka iyagu shaqaalaha ka iyo qaybaha kala duwan ee beerahaasi samaystay kuwaas oo waqtigaasi ku guda jira faagista iyo beerista dalagga beeraha waxaana looga warameen inay haystaan caqabado dhowr ah kuwaas oo ka mid yihiin tababar la'aan maadaama aanay aqoon u lahayn dhinaca dalagga wax soo saarka horena ay u dhaqan jireen xoolaha. sidoo kale waxay wasaaradda beeraha guddiga ka soo kabashada abaaraha heer qaran iyo xukuumadda Somaliland bay ka codsadeen inay taageero dhinac walba la garab istaagaan dadkan xoolahoodii ka dhamaadeen balse haatan u jeestay dhinaca wax soo saarka dalagga beeraha. daawadayaal maanta waxaan joognaa goobaha wax soo saarka ee dhinaca beeraha ee ku yaala degmada oo gaar ahaan deegaanka Naafaysay. Saarka waxaan halkaas kula kulanay beero badan oo deegaankaasi ku yaala kuwaas oo runtii aan indhaha ku saarnay wax soo saar badan oo ay beeraha soo saareen. beerahan ayaa sida loo sheegay ama dadka deegaanku ay noo sheegeen waxa ku midoobay oo iyagu sarcay dadkii xooluhu ka dhamaysay abaartii baahsanida gobolka soo martay. haddaba waxaan la kulanay qaar ka mid ah beeraleyda deegaankaasi kuwaas oo waqtigaasi ku guda jiray faagista ay faagayaan beerahaasi. anagu waxaanu dadkii reer miyiga ahaa ee abaarihii dabada dheeraaday ay naafeeyeen isla markaas oo wixii aanu haynay ay naga faramoojiyeen abaarahaas markii aanu cayn ka aragnay inuu dalkeenu uu de laba beerood lahaa beer midhaa iyo beer xoolaad tii xoolaa way tagta marka waxaanu niyadayadii aanu ka keenay oo aanu ka shuuraysanay inaanu dhulka u dhaqaaqno oo wax kala soo baxno waa anaga faagnay oo anaga qodayna oo hadeer waxaanu wadnay muddo ilaa 5 bilood baanu hadeer wadnay intii xooluhu dhamaadeen beeruna waa farabadan yihiin ilaa 25 beerood baanu hadda nahay waa raggaas kaashatada ah oo de waxa weeyeen waliba meelba ku dhuftay xoolahoodina way dhamaadeen ma hayno wax maaragtay wasaaradda beeraha kama hayno maaragtay wali taageero kama hayno waxaan se ku rajaynaynaa inuu soo gaari doonto waxaan u baahanahay matooraan u baahanahay seed baan u baahanahay waxaan u baahanahay wax lagu dhax karsado maaragtay de dhaqaalaan u baahanahay waxaan u baahanahay cagaf baan u baahanahay waa anagaas oo waanu daalay intaasoo maalmo intaasoo bilood baanu qodaynay waa anaga waxba waa sixilaanahay waxaan wasaaradda beeraha ka codsanaynaa in la soo gaaro agabkii beeraha matooradii siligii siidkii cagaftii lagu qodi lahaa biyo xidheennadii dhaqaalihii aanu ku qodi lahayn oo de raggan dhaqaale xooli waa ka dhamaadeen marka aad iyo aad baanu idin salaameynaa waxaan doonayaa in naga soo gaadhaan aad iyo aad baanu ugu mahad celinayaa dawladda jamhuuriyadda Somaliland hana la eego codsiga iyaga hala soo tixgeliyo nahay dadkii xooluhu ka dhamaadeen kadibna waxaanu aasaasnay beero waayo waxaynu lahayn laba beerood baynu lahayn beero way dhamaatay beertii labaad waa taanu maanta gudagalay wax khibrada iyo aqoon iyo hadii la ku rooyahay waa arag aan u leenahay ma jirto beeruhu way farbadan yihiin waa halbixisay waa daraydheer waa badweyn waa cagaciid waa meesha la og macbuud cadde warbaahinta qaranka Somaliland aynaba